Muna aadan oo ahayd gabadhii dhawaanahanba aadka u qabsatay baraha ay bulshadu ku kulanto isla markaana sababta u ahayd geerida Allah u naxariistay saygeedii hore oo lagu magacaabi jiray Xasan Cabdi isla markaana ahaa wiil dhalinyaro ah tagsiilana ka ahaa xaafadda Islii ayaa maanta nagu soo booqatay xarunta dhexe 5 TV iyadoo ka warbixisay qaabka uu u dhacay dilka Allah u naxariistay saygeedii hore ee lagu magacaabi jiray Xasan Cabdi iyo waliba arinta maxkamadeynta ee haatan ku socota Muna laftigeeda sheekadan ayaana ahna dhex martay Muna aad baan ku soo dhaweynayaa bal marka hore inooga sheekay sidii ay wax u dhaceen mahadsanideen Foosabaayo maadaama ay soo dhaweyseen horta waxa la sheegayo aniga inta la sheegayo dhan xabsiga ku jiray oo maba ka warqabinba wax banaanka ka dhaxayo maba ka warqabinba dad ay iimaanay waxay dhahayaan tii waatana oo ninkeeda dishay anigana waa la yaabay waqtigaas waxay ugu noqotay showga ugu noqotay familkeena markaa weydiiyo maxaa banaanka ka dhacayo qofku sheegay ma lahan because way ka naxayaan aadiyaas marka markaa soo baxay arkay media dhan waa ku jiray social media dhan waa la igeliyay anigana hore YouTube u lahaa oo muxuu ahaa waxay ila noqotay samcad xume ila noqotay sidii media la igeliyay oo ninkeyga dilal lahay horta ninka Allah u naxariisto anaga dhan samir Allah naga siiyo aamin waa ka xanuunsaday waa ilmaheyga aabahood ma fahanti mana dili lahayn qof oo aqligiisa tamaam yahayna kuma fikiraya hal second inuu caruurtaada aabahood aad dishay ma ku fikiraysid qof fikiraya ma lahan marka dilka Xasan Cabdi sidee ayuu u dhacay horta muxuu ahaa message waa tusinaya idinkana waa arkaysiin message adi wuxuu ii soo diray ku qanacsaneen ma fahantay reerkiisana awal uu sheegi jiray wiilkan physical abuse igu haya uu sheegi jiray wuxuu ila qaban jiray malahan reerkeenana always waxay ka shaqeyn jireen ilmaha waxa waaye aabahooda waaye iska daa haduu nacaayo no problem iska daa adigana dhalinyaro tahay kuma qanacsanid maanta waalidkaaga in la caayo kuma qanacsanid aadiyaas marka Xasan ilaaha u naxariisto message uu soo diri jiray uu dhahay banaankaas daa ku arko waa ku dilaya muxuu ahaa aabahaaga sidan waay kaas waa adi message falxun kuma tusi kari hada ku tuso wallahi oo hina ka imaanayso hooyadeedu caynaya adiga marka wiil waxa jiro oo habeerteeda ee dhashaa jirto wiilkii u sheegay waxa wiilka arintana haysato aabana wuxuu ka qabanaya ma lahan ma fahamtay koos muxuu dhaqan anaga waxa leenahay Soomaali maanta adiga hadii lagu dhibo walaalahaaga u imaanayo wiilka soo meelana laga saara okay aniga wiilka walaalkayga u sheegtay waxa ku dhahay dhibkana haysto wuxuu dhahay dhimanahan ana la soo hadlaayo galabtii ana mana la soo hadlaayo so I told him okay adiga wuu u tagay wuxuu dhahay muxuu ahaa Xasan Abu aniga waxa ahay Muno walaalkeeda ahay gabadhana dhibkana ku heesaabo iska daa adiga Xasan wuu booday wiilashii muxuu ahaa mindi u soo qaatay way kala carareen marka midka walaalkeeda xagee ka soo qaatay mindida wuxuu ka soo qaatay nin waxa jiro oo geedaha gacmaha suubiyo magacayaasha lagu qoray waxaas oo design-ka suubiyo bracelet marka agtiisa waxa lagu gadaa toore asagana geedihiisa sharxana jiro tooreyga meeshuu ka soo qaatay wiilkii daw bursaday wiilkana wuxuu ka soo qaatay mindida meesha fruitka lagu iibiyo ku soo qaatay aadi isna mindi kale soo qaatay wiilkii Xasan bursana Allah u naxariistay wiilka kala bursana marka mindida suu u ordaayay meesha mindida asagana fruitka lagu jajaro uu ka soo qaatay mindi kale iska waabiyo dhahay way fakatay waxayna ahayd qadar alle ahayd maanta ma jeclaysteen inuu horta dhinto ma jeclaysteen si kasta iskugu xumaadana ma jeclaysteen inay la dilo iska daayay aniga naftarkeyga ani ahaan ma jeclaysteen inay muxuu ahaa aruurteeda aabooda dilo wiilkana asaga maba ka ahaanba wiilkii naftarkiisa wuxuu qaaday showgu qaaday
wiilkii wuxuu dhahay isoo wacay baa tani taasaa dhacday wiilkii waa isku xumaanay mindi iisoo qaatay anigana waxaa dhahay iska waabiya dhahay bintida way gashay marka sidaasuuna xasan ku tagay midida xasan markuu wiilka walaalkaa la soo aaday xagee kaga dhacday uu u dhintay wuxuu meeshan dhabarka meelahaas ugu dhuftay aadiya marka aniga meelo badanaa wacay waxaa la dhahay xasan uu dhintay qaar waxay leeyihiin muu dhiman wuu nool yahay adiga maalintii dhan shaki maalin ma ahayn waxay ahayd maqribadana waa ogtay meel ma u bixi kartidbo lockdown jiro bandooya jiray marka meelo badanaa wacay qaar waxay leeyihiin wuu dhintay qaar waxay leeyihiin wuu nool yahay marka adiga subaxii aniga ilaa subaxii horta ma seexanin ani xataa shooga qaaday soo subaxii waxay soo wacay wiil askariya soo wacay wuxuu dhahay xagee joogtaa waxaa ku dhahay gurigeyga meeshaas waaye adiga directionkaa siiyey wuu i imaaday stationkaa tagnay markaas wuxuu dhahay sidee wax u dhaceen ninkaaga waa la dilay markaas waxaa ku dhahay inaa sabab u noqday horta u sheegay koos hadaa qarin lahaa ani xataa qalbi madawaada ka qaadi lahaa mana jeclaysta midaas so waa sheegay waxaa ku dhahay arinta sidaas u dhacday marka adiga almost 3 weeks aa meesha ku jiray waa xirneed xabsiga waa xirnaa 3 weeks aa meesha ku jiray muxuu ahaa baaritaan igu socday anigana wiilka the same thing maalin kasta markuu i wareysto waa u sheegay the same thing waa u sheegay sidaasay wax u dhaceen waana qadar alle horta ma fahamtid qadar allana wixii dhaceen maba soo celin kartidba hore le u socon kartaa aniga marka waxaa arkay markaa soo baxay social media meel kasta magacaygu yaalay waxaa dhahay horta wax haddii wax aa sabab u noqotay ilaahay le sabab kaaga dhigay dib ma u laaban kartid waxaa suubin kara kalina waxaa waaye horta youtube aa ka shaqayn jiray xinaa marin jiray waxaasna wuxuu u baahan tahay wejiga qof ee muxuu ula tagtid birita waxaa ku shaqaysanaysa haddaana ku shaqaysan karin ma ordaysaa no ma ordaysid waa inaa istaagtaa ka bilowdaa meeshaada horta sabab waa noqday yes I accept that ma fahantay anigana waa ka xumahay ma fahantay ilmahaygii ka dhinteen xanuunkaasna familkooda waa la qaybsanaya qasab waay marka intaasi sidaas u dhaceen markii telefoon uu kuu soo dhacay ee aad maqashay ninkaagii xasan cabdi in uu geeriyooday sababtana adigu aad lahayd maxaa dareentay aniga horta wallaahi kuma faraxsaneen habeenkii ma seexanin ma fahantay wallaahi xanuunaa dareemay waana kusasay sorry waxaa ahayd horta mid oo qaflee ahayd waxaana filaynin markii ay dhacdo aniga waa sasay caruurteeda zaaid ugu fikiray yes والله حنونة يكون قدم داس waan ka xumahay dabcan sida aad dareemaysana waan kula dareemayaa waan ka xumahay dabcan caruurtaada iyo mustaqbalkooda hadda maxaad u rajeynaysaa well wax fiican aan rajeynayaa inaan muxuu ahaa hore u socdo anagoo dhanna samir ilaaha naga siiyo hore u soconaynaa oo insha allah isagana markasta inaan xasuusnaano waa ku qasbanahay
وهجاج آد أياد أمهات سنتهاي داوديال تاس waxay ahayd Muna Aadan oo ka warbixinaysay arrin dhawaanahan bulshada ama baraha bulshada ay ku kulanto aad la isula dhexmaraya taasoo ahayd in Muna dabcan la sheegay inay ahayd gabadhii ka dambeysay dilka dhinkeeda Allah u naxariistay Xasan Cabdi dabcan iyaduna maanta bulshada ay jeclaysatay inay soo hor istaagto isla markaana arrimahaasi iyo xaqiiqadooda ay kala hadasho Muna haatan ugu dambeyn adigu arintii kiiska xagga dabcan 20 maalmood ayaad xirnayd oo xabsi ayaad ku jirtay kiiskii ugu dambeyn xabsiga aad ugu jirtay xagee ku soo gabagaboobay horta kiiska wali waa lagu jiraa khayr aan rajeynayna dhinaca oo shareecada islaamka iyo dhinaca kale khayr aan rajeynayna insha Allah wiilashii iyagu kula xirnaa wiilka gaar ahaan lagu soo eedeeyay inuu isagu dilka geystay aad sheegtay adigu inuu gacantiisa Xasan ku baxay isagu ma xiran yahay wali mise sidaadoo kale ayaa si damiina loo siistay isagana wali wuu xiran yahay laakiin waxa la jeenaynaa isagana inuu soo baxo koos xumaan isaga xataa kama ahayn self defense ahayd maanta adiga xataa qof haduu ku soo weeraray adiga xataa waxa qaadanay mugti waa baqaysaa naftaada u baqaysaa istifaacaysaa marka midaas waxay ahayd horta mid difaac ahayd marka insha Allah asaga xataa khayr u rajeynayna waa tahay bal waxaad inooga sheekaysaa horaan xilimo ayaad isguursateen adiga iyo Xasan Cabdi ilaa intee ayaad wada joogteen khilaafkiina markii ugu horeeyay muxuu ka bilowday horta waxa isguursanay 2013kii dhamaadkeeda isguursanay almost 6 sano waa isqabnay khilaafkeena waxay ka bilaamatay waxyaabo badan ay ka bilaamatay mostly Xasan Allah u naxariistay wuxuu ahaa qof maseer badan uu ogoleen inaa shaqeysto muu ogoleen banaanka inaa baxo qof dumar hadaa tahayna guriga kuma jiri kartid waa inaa shaqeysataa wax la qabataa hadaa maanta adiga aad shaqeysid familkaaga saacideynay reerkaaga saacideynay qof kale ma saacideynaysid marka khilaafkeena adiga markasta way sii weynaanaysay oo waxyaabo badan ay ku jirto laakiin waxyaabo badan ay ka ahayd maseer camal way ka ahayd ficilna waa ka dareemay meeshaas marka Allah u naxariisto imise caruur ah ayuu Ilaahay idinka la siiyay adiga iyo Xasan Allah u naxariistay 2 caruur waa tahay markii uu dhintay kadib waqtigiisii dhamaaday arintii dhacday maxaa caqabad ah ama maxaa yaani fariin ah oo dhinaca familkiisa aad ka heshay horta dhinaca familkooda waxaa dareensanaa horta inay xanaaqsan yihiin okay qof walba horta waqtigiisa uu qoran yahay ya sida adiga ku dhimanaysa ma ogi sida aniga ku dhimanayo ma ogi ma fahamtay waqtigiisana meeshaas way ku qorneed ma fahamtay qof oo u sabab aha oo maanta dhahayo ma lahan qasab waa inaa ninkaas soo dilaa dhahayo ma lahan ma fahamtay wiilkaas asaga xumaan muu wadan ani xumaan ma wadan laakiin meesha waqtigiisa meesha yaalay marka aniga waxa dhihi lahaa familkiisa maanta fariin ugu diri lahaa horta Xasan waa isjeclaan ma fahamtay jacayl isku soo guursanay haduu dhamaadana xushmada oo aabanimo u hay that's why inta soo goor muxuu ah ficil igu hay inta soo goor mu tagin ya meel iska saar kali iga ahayd laakiin xumaan maanta dagaal inay labadooda isdagaalaan xataa ma naga ahayn koos waqti ramadaan lagu jiray waqti ramadaan qof weerar kugu soo qaadayo ma jiro so aniga message waxa u diray lahaa familkooda samir anagoo dhan Ilaahay inuu naga siiyo waa tahay markii arintii ay dhacday social media ama baraha bulshada ayaa lagu soo baahiyay sawiradiina waxaana dabcan ciwaano looga dhigay gabadhii ninkeeda dishay waa lagu xiray oo xabsi ayaad gashay wiilashii ninka
dilay ama uu sababsaday dabcan gacantiisa wiilka uu ku baxay waxa la sheegay inay ahaayeen group la yiraahdo Superpower oo la yiri Superpower ay ku dalbatay arintaasi maxaa ka jira horta Superpower aniga horta meesha waxa ka garanayo waa wiilkaas oo habeerteeda ay dhashay ma fahantay wiilashaasna ayaga samcad xun ma qaban Superpower ma ahayn wax dil ay geysteen ma lahan wax telefoon ay xadeen ma lahan ma fahantay ayaga waxa u socdeen inay YouTube soo duubadaan anaga xataa markii YouTube soo duubaneen meel ina teamkiina laga yaabaa group of YouTube ay ahaayeen waxaas oo dhan wallahi wax uga shaqo jira ma laha xataa wiilkan inuu wiil kale maray ma ogeen waa tahay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee aad aaminsan tahay in sawir qaldan lagaaga gudbiyay maxaad ugu baaqleed maadaama aad tahay hooyo mar walbana aad u baahan tahay inaad bulshada dhex gasho si aad carruurtaada u korsato horta aniga familkayga markii soo baxay waxay dhaheen meeshan inaan ka tagtid waaye no meeshan inaan ka taga ma ahan meeshaas waa meeshii lagu dhalay ma fahantay bulshada Soomaali maxaa uu agtaga aniga horta bulshada Soomaali maxaa uga agtagaya waa meesha Soomaaliga xataa wajijaban yahay waa aragtaa halkan ayaad ku dhalatay halkan ku dhashay marka meel oo adiga aad ka shaqaysan karin ama muxuu ahaa let's say maanta caruurteeda muxuu ahaa soo qaadanaya caruurteeda ma fogeeya adoomiyada ma dhaxgalaa ya bulshada Soomaali waa qasab inaan dhaxgalo diinteeda aana ka soo bixin bulshadeeda aana ka soo bixin hadaa ku shaqaysanayo meeshaas aad ka shaqaysan jiray meeshaas inaan ka shaqaysto magaca xun muxuu ahaa la ii geliyana magaalada inaan la iga dhaafo wadankeena sidaas uu maanta ku burburay ficil iyo muxuu ahaa war la iska sheegayo ku burburay soo aniga ma jeclaysteen maanta caruurteeda inaan meel kala geeyo ma jeclaysteen inaan meel kale ka shaqeeyo oo awoodo ma jeclaysteen soo aniga waxaa dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaa fariinta aan hubin iska daaya